buugga xalka qoyska. حبي حرمدي قلبي جاي دمرتان كحشاي حبيبي حالك واسدي xaalkaygu ma fiicna xushmadaydu ma buuxdo intaan xalka qoyska xafidayo dhammaantii oo aan xiriirkeena ku dhisanayno xogtiisa. أنا وضع حفظنا بسنة غير حرمد لي حالك قويسك وامحي xalka qoysku waa buug xaajadii gurigeena iyo xeeladii aqalkeena noo xayaabo tiro xusuus weyn inagu reebi. xalka qoysku waa buug xalinaya dibkeena oo ka helayno xog buuxdo qoysku uu ku farxayo. حالك قويسك وابوك حيل ليرا قويسو لحماتي حاجدو قويسكينو جوغو حالينا يحمهو حلقو هسيدي xushay oo ma deyne xagee baan ka helayaa. waxaad ka heli kartaa dhammaan xarumaha buugaagta lagu gado sida Zaylac Bookshop, Qaaf Bookshop iyo Barakaad Bookshop. xalka qoysku waa buug kugu tababaraya sidaad u dhisan lahayd qoys waara iyo sidii aad isaga saari lahaydeen mugdiga iyo is-afgaran waaga hareeyay guryaheena. Horay u gaar oo yaan laga dhamaysan xalka qoyskaaga. xalka qoyskaagu wuxuu ku jiraa inaad hesho buugga xalka qoyska. xalka qoyska. xalka qoyska. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا ما تحب وترضى كلنتي وناكسن داود يال وبرنامج كني حلقة قويسكا وحان صوب بلوني موضوعني أها habka dhismaha qoys baraara. habkan waxaan ku sheegnay inuu yahay diyaar garowga hore iyo wada dhaqmid inuu u qaybsamo. qayb diyaar garow ah iyo qayb wada dhaqmida inuu u qaybsamo. waxaan ka soo sheekaynay habka dhismaha qoys baraara oo aan sharaxnay iyo qodobkii ugu horeeyay qodobadii diyaar garowga oo ahaa garaadso intaadan guursan. qof aan garaadkiisu buuxsamin daadiisu buuxin fahmayn meeshu uu maaragtay u socdo mas-uuliyaddu qaadayo maahan inuu guursado. qofku waa inuu garaadkiisu buuxaa qaangaaraa caqli iyo maxaanku yidhaahdaa maskax iyo fikriba uu fahamsan yahay qofka uu guursanayo iyo meeshuu u guurayo iyo meeshuu ka guurayo inta uu fahamsan yahay. marka inaad garaadkaagu iyo caqligaagu iyo da'daadu ay buuxdo oo guur diyaar u tahay waa qodobka koowaad oo aan ka soo sheekaynay. insha allah waxaanu gelaynaa haddii alla noo qadaro 3 qodob oo iyaguna diyaar garowga ah. waxay noqon doonaan kan u horeeya waxaa weeye wanaaji naftaada intaadan go-aansan guurkaaga. wanaaji naftaada. ka labaadna wuxuu noqon doonaa guurso qof aada isfahamsan tihiin. kan saddexaadna wuxuu noqon doonaa insha allahu ha ku bilaabin gurigaaga ama arooskaaga macaasi. markii qofku uu noqdo qof qaangaaray maskaxiyan waxbartay diyaar oo inuu mas-uuliyad qaado oo qodobkii hore odan ka sheekeynayna ahaa garaadso intaadan guursan ah. waxaan ku xijiyay anigu inta aadan guurka qofkaa dooranayso xulan adugu inaad horta ishagaajisid. wanaaji naftaada intaadan guursan intaadan go-aansan guurkaaga inaad naftaada wanaajisid oo aad ka dahirtid dhammaan waxyaabaha xumaanta ah waxay faa'iido u tahay ama furo u tahay inaad hesho qof wanaagsan. qof wanaagsan shareecadu waxay noo sheegtay in ilaahay ku aadiyo qof wanaagsan. qof dahiray inuu ilaahay qof dahiran ku aadiyo. caqliga caadiga ah oo bini-aadanka mandaqaan wuxuu ogol yahay qofka sida asaga u fakerayo ama asaga ay uu doonistiisu tahay wuxuu doonaya inuu helo. haddaa xumaan ka fekertid iyo wax aan wanaagsanayn waa helaysaa. haddaa dhinac saxdaa u fekertid oo adiga naftaada wanaajisid oo aad ka fekertid qof wanaagsan inaad heshana waa helaysaa.
saa wax u doontaad ku helaysaa adiga. marka qodobka ah inaad naftaada wanaajisid wuxuu furo u yahay inaad hesho qof wanaagsan. haddaad marka adiga iska bilaabin wanaaggii asi aad ka fekerayso inaad hesho qof wanaagsan, waa failure arrintaas, waa guuldarro. sababtoo ah waxaa la rabaa markaa ka fekeraysa wax wanaagsan adiga laftirkaaga inaad wanaagsan tahay. dabeecada ilaahay bini aadan ku abuuray, qof kastoo xun ma aaminsan inuu xun yahay, qof kastoo qaldan ma aaminsan inuu khaldan yahay, qof kastoo dembiilaa ma aaminsan inuu dembiilo yahay. arrintaa ogaada. ficilka qofkaasu markaa ku jiro iyo habdhaqankiisu waa la qurux badan yihiin. dad badan oo markii loo sheego talada ama la tuso waxaan wax ka fiican inay jiraan qaata waa jiraan, laakiin waxaa la rabaa qofku asagu inuu iskontaroolo, fahmo, maadaama uu rabo inuu ka gudbo bridge, buundo inuu ka gudbo, buundadaasna ay tahay buundo mas-uuliyaddeedu ay culus tahay. waxaa la rabaa inuu fahmo buundadaas uu ka gudbayo markuu bannaan dhinaca kala taga wuxuu helayo. si uga gudbi lahaana asagu inuu dee qaato habku ku gudbi lahaa, oo ah inuu asagu ishagaajiyo, isdahiro, iswanaajiyo. raggu inta badan waxay aaminsan yihiin in gabadhu ay tahay inay iswanaajiso, laakiin asaga ahayn. mas-uuliyaddana asagaa qaadaya. marka waxaa la rabaa qofku asaga naftiisa inuu ka bilaabo inuu iswanaajiyo, kabacdina uu ka fekero qof wanaagsan inuu helo. ma aha wax ragga gaar ku ah. dumarka laftirkoodu gabadhii guur doon ah oo rabta inay guursato nin wanaagsan, waxaa la rabaa iyadu inay iswanaajiso. waa la hubaa gabadhii wanaagsan gurigooda loogu imanaya, ma qarsoonto. gabadhaan wanaagsanayna meelo kale ayay ragga ugu tagtaa, laakiin gabadhii wanaagsan gurigeeda loogu tagaa, lagu sharfaa, lagu doonaa, laga guursadaa. sida shareecadu qabtana waa sidaa. marka gabdho hadday iswanaajiyaan oo ay sharaftooda iyo xurmadooda ilaashadaan oo ay muuqaalkooda iyo macnahoodaba ay dhowrtaan, iyagoo meeshooda joogaa loogu imaanaya. sababto iyagaa loo baahan yahay. gabdhuhu waa inay fahmaan baahida iyagaa loo qabaa, iyagaa raggu u baahan yihiin. hadday isqiimo tiraan hadda qiimahaas waa lumaya, hadday qiimaha soo ceshadaanna meeshay joogaan baa loogu tegaya. marka si qofku uu isu wanaajiyo oo uu qof wanaagsan u noqdo, waxaa loo baahan yahay, aniga say la tahay, in qofku wanaajiyo kow habdhaqankiisa. qofku inuu habdhaqankiisa asagu uu u dhaqmayo waa inuu wanaajiyaa. habdhaqankiisa maxaa ka mid ah? waxaa ka mid ah labiskiisa, waxaa ka mid a hadalkiisa, waxaa ka mid a toosnaanta akhlaaqdiisa, inuu qofku toosiyo. qofku waxaa rabaa asagu inuu istoosiyo. haddii uu labisanayo inuu labis macnale oo jirkiisa aan asturaya oo aan ku dheganayn uu qaato. rag iyo dumarba ma aha wax muqasis ku ah hadda dumarka. rag badan ba hadda waxaa jira aada iyo aad ula yaabaysid dharka ay qaadanayaan iyo si ugu dhegan yahay. sax maaha. maradu waa inay jirkaagana asturtaa, aysan culays fara badan iyo weynaan fara badana lahayn. inay kugu dhegan taho jirkaaga xubin u haysana looma baahna, ama rag noqo ama dumar noqo. waxaa la rabaa labiskaaga inaad hagaajisid, waxaa la rabaa hadalkaagu inaad macnihiisa ilaashatid oo hadalkaaga wanaajisid, oo hadal xumada iyo maxaanku idhaha hadallada qadafka ah iyo hadallada qofka dhibaateynaya bataatan baad banaankiisa sababto waxba ku tari mayso. akhlaaqdaadan inaad toosisid oo dadka saa ula dhaqmaysid, aada wanaag gudbisid. qof walba aad wanaag u gudbisid, sababta wanaaggaas wuxuu kuu keenayaa adigan inaan wanaag laguu soo celiyo. laakiin marka adiga aad wanaag aada gudbin oo aad dadka la dhaqmaysid adoo guurdoon ah, ama iskuulka ha noqoto ama guriga ha noqoto ama deriska ha noqoto, akhlaaqdaada iyo hadalkaaga uu ku xun yahay, dee war ka dheeraya ma jiraan. warku waa gaaraya dadka. haddaad wanaag ugu dhaqantana wanaagga dadka waa gaaraya, haddaad xumaan ku dhaqantana waa gaaraya. marka waxaa la rabaa adiga inuusan kaa bixin sawir khaldan, sawir fiicanna aad iska bixisid, naftaadana aad hagaajisid. marka si aad taa u suuragelisid, saddexdaa qodob wanaaji naftaada ah oo ah hadalkaaga iyo labiskaaga iyo akhlaaqdaada inaad toosisid. 2 inaad ka fogaatid balwadda iyo dhammaan mukhaadaraadka. waxaad ogaataa qofku markuu rabo inuu naftiisa wanaajiyo, dhammaan waxyaabaha maanka dooriya waa inuu ka fogaada. haddaadan saa samaynin oo adoo doonaya inaad wax wanaagsan samaysid ama gabar wanaagsan guursatid, aada mukhaadaraad isticmaalaysid, mukhaadaraadkaas wuxuu kaa saarayaa
wanaaggii iyo sharaftii iyo wanaagga kaa saaraya sax ma qof mukhaadaraad cuna waa isla garanaynaa haba yaraatee sharaf kastoo qofkaasu leeyahay ama qiimo kastuu leeyahay asagoo waxaa ku dhex jira marka loo yimaado sawirka laga qaadanaya waa la fahmi karaa waana wax dhammaanteen aan garanayno wey marka waxaa la rabaa in dhammaan mukhaadaraadkaasna aad ka fogaatid si aad adiga naftaada u dahirtid oo ay u noqotid qof dahiran isla markaana qof dahirin doonaya gacan nadiifa ayaa soomaalida waxay tidhahdaa gacan nadiifa weel nadiifisa weelka markay gabdhuhu dhaqayaan gacantoodii marka hore soo nadiifiyaan kabacdi alaabta lagu dhaqaada laakiin gacantaada wasakhaysan weel laguma dhaqo maahaasi soomaalida isticmaashaa ujeedka ka dambeeyana waxaa weeye adiga maxaad doonaysaa wax wanaagsan marka noqo adigu qof wanaagsan adiga oon qof wanaagsanayna ka feker inaad qof wanaagsan hesho haddaad heshona ku waari maayo sababtoo adaanba wanaagsanayn ama lacag ku hel ama khiyaamo ku hel ama qaraabanimo ku hele haddaad qof wanaagsan hesho asaadan adigu istoosinin dee ku wanaagsanaan mayso ama iyadaad bedelaysaa oo meeshaada geynaysaa ama adaan la joogayno ka tegaya marka si aysa arrintaas maaragta u noqon arrin guuldaraa waa in naftaada aada wanaajisaa kana fekertaa inta aadan guursan in aad naftaada wanaajisid si aada u heshid qofka aad doonaysid oo wanaagsan si fudud labo guurso qofkaad isfahamsantihiin waxaan ka soo hadlay aniga casharadii jabtarkii labaad mawduucii labaad oo ahaa fahamka qoyska aad baa arrintaas qofkii u baahan casharadaas waa ku jiraan youtube-ka iyo maxaanku yidhaha website-ka qoysbile iyo facebookga waa ku jiraan fahamka qoyska qodobada inuu si fiican u fahmo haddana waxaan rabaa qodobkan ah guurso qofka ay isfahamsan tihiin wuxuu ka mid yahay diyaar garowgaaga noloshaan dhammaanteed waa isfahm meel aadan fahmayn ama guri aadan fahmayn ama gobol aadan fahmayn midna ma dayi kartid maanta waxaa la marayaa qofku meeshuu u socdo waxa ka horeeya inuu fahamsan yahay iskuol baa u socotaa iskoolkaas waxaad ka qabtaa expectation baad leedahay adiga waxbaad ka filaysaa inaad ka hesho markaa jaamacadda dhamayso waxbaad filaysaa sidaas si lamid ah shaqo haddaa qabanaysa income kaa soo gelaya waad ogta waa cadiya war maanta qofkaa rabta inaad guursatid waa inaad fahamsan tahay qofkan waa inaad fahamsan tahay waxa kaaga imaan doona waa inaad dabeecadiisa fahamsan tahay waa inaad xiriir dhow leedihiin oo isfaham buuxaada leedihiin haddaad isjeceshihiin oo jacayl dhabo idinka dhexeeyo asaadan isfahmaynin jacaylkaas guuldaro ku dhammaanaya jacaylku wuxuu keenaa in la isfahmo fahm hadduusan jirinna jacayl ma waari karaba mana jiri karaba waxaad arkaysaa qisooyin badanoo noocaas ku saabsan oo dhac oo wiilkule gabar baan jeclahay gabadhii dee gabar ii soo jeeda ama markaan isu nimaano dee hadalba iskuma fahmi karno rag saasoo kale kulaad arkaysa dee gabadhaan wada soconno niyo maba sheekaysan karnaba daqiiqad ma fahmi karno war guurku waa fahm waa isfaham waa wada noolaansho qofkaas sheeke isku fahmi weydeen oo banaanka dabeecaddiisii iyo taadi isku qaban laadahay markaad guri isu tagtaan ma isqabanaysaan markaad guri isu tagtaan ma wada joogi kartaan ma dhisi kartaan guri akhlaaq iyo sharaf iyo qiimo ku dhisan didna isfahmi waxaa loo baahan yahay guurku si uu noogu hagaago oo guur fiican noogu noqdo isfaham inuu ku dhisan yahay iyo wadatashi iyo istixgelin haddii inta aada weydo inta broseskaas aad ku jirtid broseska diyaargarowga intaa ku jirtid qofkaa la sheekaysanayso ama jacaylkaaga inta aad la socoto haddaad isfahmi weydaan arrintaas si fiican uga fikir intaadan kharash garoobin intaadan gabar yahay lumin inta aadan guurka ku khasaarin waa inaad fahamtaa qofka aad la sheekaysan inaad fahmaysaan dabeecadiisa inaad fahmaysid dhaqankiisa inaad fahmaysid waxyaabuhu dhibsanaya inaad fahmaysid adigana saasoo kale lagaga baahan yahay in lagu fahmo oo dabeecadaada loo fahmo waxaa la rabaa dhallinyaradu albaabkii u furma inaysa iska gelin gabadhii ka hortimaada wiilashu inaysa iska aaminin inay guursadaan gabdhuhuna wiilkii u sheekeeyo de waa ku jeclaha yidhahda inaysa hore ka raacin macnuhu waxa weeye horta faham hayse gelin albaabkaana gudihiisa waxaa ku jiran horta qiyaas faham waxa qofkan dhexdiisa ku jira inaa fahamtaa la raba markaa qofkan dhexdiisa waxaa ku jira fahamta suu fakerayo
iyo dabeecaddiisa ka bacdi go-aanso oo guurso. guurku wuxuu ku fiican yahay dadka isku da-da ah oo weliba isfahamsan. dadka isku da-da ah oo weliba isfahamsan buu ku fiican yahay oo dhallinyarada ah. qofku wuxuu ku fiican yahay asagoo dhallinyara inuu guursado oo xoog leh oo qaadi kara culayska iyo mas-uuliyadda ka dhalanaysa guurka. dhallinyarada rabta inay isguursato waa jaaniska ugu fiican qof dhallinyara inuu raadsado qof da-diisa oo ay isfahmi karaan oo ay isku khayr yihiin. sanad iyo labaha kala wadan hadday rabaan, laakiin inaad hesho qof kugu da-ah adiga ama 20 jir ama 30 jir ama 25 jir ama 18 jir, qofka hadduuba qaangaaro guur u diyaar garoobo, qof asaga la level ah la da-ah waa inuu doontaa oo isfahmi karaan. taasu waxay raajinaysaa labada qof dhallinyaranimadoodii inay ka uga faa'iidaystaan guriga xalaasha ah oo reerka inay dhisaan, inay isku waaraan, in ay noloshooda dhammaan wada qaataan. laakiin markaad doontid qof aadna isfahmayn ama kala da-weynaada ama isla ekaade oo degdegtaan idinkoon aad isfahmaynin, burbur baa imaanaya. marka diyaargarowgaagu maadaama aad doonayso inaad dhistid guri baraara ah, waan ka hadlaynaaye yaan ku dhex jirnaaye, maadaama aan rabno inaan qoys baraara dhisno, waa inaan qof aad isfahmaysaan guursataan. qofkaa jeceshahay maaha. hadduu qofkaa jeceshahay aadan isfahmayn ka leexo. waxaan kaloo anigu aaminsanahay kala weynaanta da-du mararka qaarkood faa'iido badan inay leedahay. weliba waxaa wanaagsan in raggu ka weyn yihiin dumarka ay guursanayaan, iyaga ka weyn yihiin. da-da anigu ma sheegayo, macnaha limid ma sheegi karo, laakiin waxaan aaminsanahay haddii raggu maadaama mas-uuliyadda ay guriga ayagu ay leeyihiin inay ka wen yihiin xaaskiisa inay aada u faa'iido badan tahay. dhallinyarada maahmaah baa jirta la yidhaahdo inta wiil ka boodo geed ayuu tale ka boodaa. macnaha dhallinyaradu taladu inta badan waa ka hoostaa ama way ka fakataa ama waa haleeli waayaan. waxaana ugu wacan nolosha dhallinyaranimada ayaa waxay tahay nolol degdeg ku jiro, waayo aragnimaan jirinin. waxaa laga yaabaa guurkan iyo noloshan su dhinacu ka fiirinaya inaysan ahayn dhinac kale inay tahay inuu ka fiiriyo. odayaasha marka waxay dhihi jireen nin intuu geed ka boodo ayuu talada ka booda. dhallinyaradu geedaha dhaadheer ba inta badan ka boodi jireen. marka ninba intuu ka bootin dheer yahay oo geed ka boodi karo, hadduu dhallinyaro yahay talada intaasuu ka boodaa, talada ma hale leedahay. wax badan baan aragnay dhallinyaro yararoo isguursatay oo aada isugu degdegtay oo isguursatay da iyo laba markay dhaleenna de kala tegey, ama noloshiiba ku adkaatay oo si xun lagu kala sii daayay, reerihii isku dhibtoodeen. arrintan marka waxay fursad siisay dee dad kale. waxaan ilaahay baa wata moogtaa waa aragnimo la-aanta ninka dhallinyarada ah maalin walba uu samaynayo oo gabadhii yarayd oo isu fahmeen uu guursaday uu ku hayn waayey, dee nin kale ka faa'iidaysanaya. waa qadar ilaahay. odayaasha gabdhaha yar guursada, anigu uma jeedo melihi inaan gabdhaha ku ahaynaynaya maaha, laakiin anigu guurka waxaan ba u arkaa guurka aadka u kala weyn oo da-da aadka u kala weyn ma wanaagsana. laakiin waxaan aaminsanahay da-du in kastaba ha kala fogaato intii macquul ah, laakiin haddii reerkaas u dhaqmi karo oon dhibaata dhexdooda ka jiri karin oo gabadhaas gurigaa wixii ay u timid ka heli karto, inaan problem ahayn baan ugu aaminsanahay. markaan fiilan xagga dhaqankana guurka dadka kala weyn waa ku soo caanamaaleen. dadkan Soomaalidu aad bay u isticmaalaan. reero badan baa ku soo ilmo dhameeyey oo ku soo maaragtay baraaray. kuwa badanna hadday ku jiraan oo gabar nin ka weyn uu qabaa ay la degan tahay oo u dhaqmaysaayo dhibaataysa ku dhex jirin. waxyaabaha anigu aan ka ogaadan waxaa ka mid ah dhallinyaradu marka ay fahmi waayaan gabadha la noolaayeen, dhibaatada ay hadallada isku fahmi waayaan ama ay fahmi waayaan, waxay keentaa burbur degdega. sida caadigaana guurka marka la galo ama wiil ha noqoto ama gabar ha noqotee dee bisaylna ma jiro, waayo aragnimo ma jirto, fudayd baa imaanaya. marka weliba inta badan gabdhuhu markii ay yaryar yihiin waa fudud yihiin. sababtu waxa weye waxay gelayaan nolol culus oo mashaakil ah oo ilmo dhalis ah oo guri hayn ah oo mas-uuliyaddii ninka ah, wixii baa isugu tegaya. ka bacdi waxaa imaanaya inuu adkaysan weydo culaysadii ay maxaankueda ay keento inay maaragtay isha wixii culaysadii ay qaadi weydo. ka bacdina uu fahmi waayo ninkii dhallinyarada ahaayo
uu saa isaga tago. laakiin ninka weyn ee gabadha ka weyn ee waaya aragga ah wuxuu fahmayaa in fudeedkaa dhammaanayo, in fudeedkaasu maalmo iyo sanado yahay. gabadhu markay dhowr cunug dhashay inay iska degi doonto, hooyo wanaagsan noqon doonto, wanaaggeedii loo tegi doono. laakiin ninkaa dhallinyarada ah waa intaan sheego intuu geed ka boodo tale ka boodaaye inuu gabadha 2 sano 3 sano u samro oo ay fahmayso reerkii iyo dhaqankii iyo habkii guriga ay fahmayso, inta badan ma sameeyaan. taasna waa midda aan ka digayo aan leeyahay war dhallinyaroy gabdhaha yararka aad guursanaysaan chance siiya ay ku noqdaan hooyo buuxda oo ay ku fahmaan guriga. ha degdegnina furiinkana ku degdegnina. marka hore dooranaysaana faham raadiya, markaad guursataanna furiinka ku degdegnina. li'annahu gabadhu markay 2 cunug dhasho xagee kaga socotaa? waa hooyo ilmay dhashay way degtay. laakiin inta ay 2-3 ka dhalayso reactionka ka imaanaya mas'uuliyadda qaadayso la qabsanayso ilaa wax walba ku cusub yihiin, ha u qaadan inaan nacayb iyo dhibaatee ku hayo oo ku tixgeliyo oo ugu samra. taas waa midda odayaasha waaweyn ay sameeyaanoo waxaad arkaysaa wiil 2 gabdhood 2 yaryar 2 cunug loo dhalay gabadhii ku furay ku dhibaateeyey. gabadhaasuna uu nin ka weyn inta shukaansaday ku guursaday ilmihii oo ay leedahay wiil dhalinyarada dooma warrababa. li'anna wiilkii dhalinyarada ahaa dhibaato ku haya gabadha waa dhibay. laakiin ninkaa odaga ah waad aragtaayo culayskii iyo dhibkii gabadha ku haysay wuu ku samrayaa oo wuxuu ogayaa waxayna dhammaanayaan. marka waxaa la rabaa isfahamka guurka. inta aad rabto inaad guursatid inaad faham ku salaysid, inaad ku salaysid wada noolaansho saxa iyo qofkan waxa kaaga imaan kara inaad fahamsan tahay, dabcadana la iska barto. qodobka 3aad ee diyaargarowga afraad baan ka wada 3aad maanta ka hadlayna wuxuu ahaa ha ku bilaabin arooskaaga macaasi. waxaa ogtay reerka marka la dhisayo oo aad soo garaadsato qodobada haddaan ka hadlayni, waad weynaatay, waad garaadsatay, waxaad noqotay nin qaangaara, waxbaad baratay. waxaad wanaajisay naftaadii intaadan guursan ka hor oo waxaad u diyaargarowday inaad isdahirto, xumaan ka fogaatid, isla markaan aad doontid qof aan xumaan lagu ogeyn. waa 2. waxaad haddana ka fakertay qofkaa guursanaysid inuu yahay qof aad isfahamsan tihiin oo aad nolosha wadaagi kartaan oo dabeecaddii waxaad baran kartid. 3 intaa markaa soo heshid. 4 waxaa ah inaadan ku bilaabin guurkaaga macaasi. macaasidu sideedaba waa dab. gurigaaga markaad dhisaysa inaad dab ku qabatidna wax macnaa male, sababto waa dembi wey. dembiguna waa dab, naar baa ka waajibaysa. waxaad ka fekertaa arooska marka Soomaalidu dhiganayso waxaa la sameynaa waan garanaynaa. xabadaa la ridaa, muusig baa fanaaniin baa lasoo kariyayaa, muusig baa la tumaa, habluhu way soo qaawiyaan oo hablaha dhan ayagoo qaawan bay imaanayaan. war waxaasoo dhan gurigan aad dhisaysid wax faa'iida oo ay u keenayaan ma jirto. adiga guri islaama oo gabadhaad ka fekertay, waqti gelisay, maxaan ku yiraahdaa naftaadii aad u soo dahirtay, qarash gelinaysa bad gursanaysaa. waxaa la rabaa inaad ku bixisid markaad bilaabaysid in ay farxad iyo raxmad iyo raalaanshihii Allah ay meesha taala la rabaa. haddaadan gurigaaga ilaahay ku raali gelinayn oo aad farxad ku raadinayn oo naxariis ilaahay ku raadinayn oo aad xumaan ku bilowdo maxaa ka dhalanaya? waxaa ka dhalanaya reerkaasna in xumaantaas uu ku bilaabay hadduu ka toobadkeen ay gurigii gasho. laakiin sideedaba ma waxaa jirta la yiraahdo quraan alif ka qalloocday albaqara kama hagaago. guriga markaad dhisaysid oo aad hagaajinaysid haddii uu aasaaskaas guri ka dhisaysid oo ka qalloocdo markaad saarto dhagaxa iyo bulkeetigu uu tarar baa ku dhaca. waxaa la fahmaa meesha guriga ka qalloocan yahay. war reerka aad dhisaysaan dhallinyaroy oo aad muusiga iyo xabadaha iyo qaawanaanta iyo fanaaniinta ku bilaabaysaan dee gurigaas guri barakoobaya uma ekaanayo. gurigii khayr lagu bilaabaa khayr ku nagaada, gurigii wanaag lagu bilaabaa wanaaggaas ku baraara, gurigii ilaahay raalaanshihiisa iyo raxmadiisa lagu dalbado yaa ilaahay aqbala. laakiin guri aad ku bilowday dhibaato iyo xabad iyo xabada la rida iyo muusig la garaaco iyo fanaaniin qaawan oo heesta iyo waxba gurigaa kugu tarmayaan. waxaan xasuustaa
2000 anigoo gobol jooga gobollada Soomaaliya ka mid goor halkii sac meelahaas yaa waxaan maqlay xabado aad u badan oo dhacay aad u badan oo dhacay waxaan u qaadanay in laba reer isdilayso meel waxaan fadhinay dukaamo hortooda waa ka yar baqna xabadihii waan ugu soo dhawaadeen dukaamadii waan ku carar waan ku galnay haddaan daqiiqada ku jirnayna meeshii waxaa soo maray aroos la gelbinayo oo baabuur ay dhalinyaro badan saaraantoo xabada ridayaan aad moodid laba gurub oo dirirays xabadaha intay ridayeen laba qofna waa dhinteen qofna waa ku dhaawacmay markay aan ogaanay wuxuu inay aroos yihiinna hormaray oo xabadaha dadkii meesha jooga dhan waa habaareen intii meesha joogto dhan ilaahay inkaar idinku rid baa way naga nexyeen ilaahay inkaar idinku rid habaar baa laga daba tuura qoyska marka inta xabada riday ummadda ilaahay laayay oo wax dembi dhulkan lagu galo waxaa ugu xoog badan qof muslim oo la dile arooskiisii qoyska dadka ku laayay muxuu filayaa ma u malaynaysaa in wanaag uu ka dheefayo ma u malaynaysaan awlaad baari ah iyo dad wanaagsan inay ka dhexlayaan dhiig bay daadiyeen macaasi bay ku bilaabeen ummaddii ilaahay o dhan bay cabsi geliyeen war waxaasu wixii lagu bilaabay wax noocaas oo kaletaana dee wax wanaagsan kama yimaadaan waxaan leenahay carruurtu maxay caasi noogu yihiin waxaan leenahay gabadhii maxay baari u noqon laada waxaanu leenahay war see qoyskaan baraaro u noqon waay war annagu aan hagaajino aan diyaar garowga naga hagaajino oo markaan diyaar garoobayno waxyaabaha kaleba waa isu diyaarinaaye haddaan jaamacadda galina waa isu diyaarinaa oo haddaan magaalada u labisanayna waa isu diyaarinaa oo haddaan ballaba leenahay waa isu diyaarinaa war markaad rabta inaad guursatid war qodobadaa si fiican isaga eega gurigaaga macaasaha ku bilaabay waxaa kaloo caan noqotay in fanaaniin lasoo kireeyo in la heeheeso in habluhu soo qaawiyaan oo aroosyada saas oo kaleeto dadkii ay isdhex galaan rag iyo dumarka isdhex galaan war waxaasoo dhan qoyska faa'iido uma aha waa macaasi waa dulmi naftaadaad dulminaysaa oo ilahay baad ku caasinaysaa oo xumaan baad ku bilaabaysaa gurigaagii gabdhaha waxaa la rabaa inay fahmaan war xaflad dhigo oo dabaaldeg oo farax oo inta ilaahay ku ogol yahay samee iyadaa kuga filan iyadaa ku barakoobaysay laakiin markaad gurigaaga muusig iyo shineemo ka dhigtid aad ku bilowdid ummadda ilaahay oo dhanna aad dambaajisid dariskiina muusig aad ku dhibtid yaa gabdhihii iyo wiilashiina aad u ballamisid inay isdhex galaan ilaa adaa isu diyaarinaya gurigaagi aad leedahay la isugu yimaaday dunuubta ka dhacday yaa qaadaya ma adaa qaadaya ma qaadi karaysid bini aadan baad adkaysuu ma lihid waxaa lagaa rabaa ilaahay farxad geli oo gurigaaga waxa shareecada ogoshahay ku dhis farxad iyo wanaag baad ku noolaanaysaa markaad doonaysid in aad gurigaaga dhistid macaasida iyo maxaan ku idhaahdaa waxyaabahan ka hadloo dhan ka fogee ka durji farxad muusig maxaan ku idhahdaa durbaan garaaco gabdhaha guriga ha isugu yimaadaan keligood ha ku boodboodaan laakiin inaad rag isdhex gelaysid dumarka tiraahday hala isugu yimaado gabdhuhuna iyagoo wada qaawan yimaadaan muusig iyo heesana laga garaaco dee guriga waxaa ku bilowday yaaba kaa baabi'inaya farxad kama helaysid meel ilaahay lagu caasiyey oo care ilaahay ku dhacday farxad kama helaysid bal qulubtiina ilaahay kala fogeynaya sababto ilahay baad ka caraysiinaysaa marka si aad qoys baraaraa u hesho oo degan oo wanaagsan ha ku bilaabin macaasi dembi ha ku bilaabin qulubtiina dembi ha ku bilaabin habeenka oo horeeya farxad baad ku jirtaan waad aroosaysaan noloshii horead ka guuraysaan nolol cusub baad gelaysaan ilaahay barya wixii ilaahay kuu ogolyahay oo farxadaada aad bannaanka ku keeni kartid ehelkaa ku tusi kartid samee laakiin waxyaabaha ka dhalanaya macaasida ka fogow waana aragnayoo dad badan oo arrintaa ka fogaaday oo si tartiiboo qabo guurkooda u sameeyey maanta waa ka liibaansan yihiin dadkii boodboodayoo waa arrinaan si saxa u tijaabinay waa arrintaas qoysaska muusigga isku guursaday iyo fanaaniinta bal maskaxdiina dib u baara see wada nool yihiin bal baara waxbaa kugu soo baxayaa si fiican u fahamsan tahay kuwii inta isguursaday aan waxaa samaynin ee sidii shareecada inta isku guursaday farxadoodii koobay dad macaasina aan ku bilaabin ee guryahoodii si sharaf le ku tegayna raadiya oo say ku nool yihin maanta soo fiiriya
boqolkiiba 90 wada nool yihiin sababta waxay ku bilaabeen raali ahaanshaha ilaah allah asagaa qalbigooda isu dhaqaya asagaa isu soo jeedinaya asagaa qayr dhex dhigaya laakiin markan intaaba waa waayeysa waxaan soo jeedinayaa marka habka dhismaha qoys baraara ah markaa ka fekeraysid inta ay in kaleba way jiraane waa inaad maskaxda ku haysaa processkaas saa u socda in aad ka fekertid u diyaar garowdid intaa markaa samaysid iyo wixii kaloo insha allah aan dib ka soo sheegi doonaba waxay noqon doonaan habka dhismaha qoys baraara sababta markaad wax baraara ka fekeraysid kriteeriyada aad rabtid inaad ku gaadhid waa inay fahamsantahay waa inaad ku qanacdaa in qodobadaasu ama wixii kaloo adigu aad isleedahay waa ku wanaagsan yihiin ood ku sii dari kartaba inaad u fahamtaa inay tahay habka lagu gaari karo qoys baraara markaad qoyskii dhisto oo hadda waa cashiradayna dambaan geli doonaayo qoyskii kuu dhismana hadda waa habka wada dhaqmidda oo iyadana waa ka wada hadli doonaayo mas-uuliyadda ka dhalanaysa iyo habka la doonaya in loo wada dhaqmo casharo soo socda baan insha allahu tacaala uga sheekayn doonaa laakiin markaan baraaraha ka hadlayno qoys baraara inaan dhisno waa inaan ka qodobadaa sidaa u samaynaa u diyaargarownaa qaangaarnaa doorashadanada aan salaynaa qof aan isfahmayno go-aansanaa inaan wanaajino nafteena intaysaan anagu aanaan guur gaarin iyo inaanaan ku bilaabin macaasi arooskaaga anigoo rajaynaya in aan casharkaa si fiican maaragtay aada u fahamteen islamarkaana kulmi doona haddii alla qadaro waa cismaan sheekh oo idin leh wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu